wacan daawadayaal halkani waa Xogsoor Media qodobada wararka aan idin hayna kuwada ugu doorka roon waxaa kamid ah dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay inaysan raali ka ahayn doorasho dalka ka qabsanta 2022 iyo waliba sidoo kale doorasho ka dhacda gobolka Banaadir oo lagu soo doorto gudoomiyaha gobolka Banaadir oo iminka madaxweynuhu midka uu doono u soo magacaabo madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo laga hor sheegay halka uu marayo dastuurka Soomaaliya iyo dhameystirkiisii maadaama dastuurku uu noqday mid waqti badan qaatay ciidamo si gaar ah u tababaran oo hoostaga madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la wareegay garoonka iyo waliba dekedda magaalada Kismaayo xarun telefishin iyo dhammaan shaqaalihii ku sugnaa oo xabsiga loo taxaabay qodobada iyo warar kale ayaad ku daawan doontaan Xogsoor Media haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe oo gambalelka riix si muuqaaladooda ugu soo dhacaan mahadsanidin aynu ku horeynay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay raali ka ahayn doorasho 2022 dalka Soomaaliya ka qabsoonta waxaana dowladda federaalka Soomaaliya la sheegay inay ka soo horjeedo laba arrimood oo muhiim u ah gobolka Banaadir iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed tan koobaad waa inay dhacdo doorasho qaab wanaagsan loo soo abaabulay iyadoo halista iminka jirta lagu shaqeynayo iyo waliba sidoo kale gobolka Banaadir oo uu sheegay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi in dowladda Soomaaliya aysan doonayn hoggaan la soo doortay inuu yeesho waxaana sheegay inay doonayaan mar walba qofka ay doonaan gobolka Banaadir in ay u soo magacaabaan yaashii madaxweynuhu way nala joogaan aniga shan shay waa isku qaban weyday iyo dalkan doorasho qof iyo cod ayaa ka dhacaysa waxyaalaha kalsooni xumada keenay macadkaana aan ugu mahadcelinay inuu options keeno markii uu ka qoostay tii weyneyd uu rajo xumo ka muujiyay waxay tahay sharcigii doorashooyinka hindisa sharciyeedka hadda baarlamaanka hor yaalla yacni dastuurku totally dastuurku ka soo jeeda October sanadkii hore ayaa seminaarna loo qabtay anagoo xisbiya hindisa sharciyeed fiican oo quman oo kii kamaal uu ka hadlayaana loo soo bandhigay wixii aan ka sixi karnaa aan ka saxnay 7 bilood baa la haystay waxaa lagu soo qoray waxaad aragteen qodobka 12aad qodobka 56aad ee hindisa sharciyeedkaas extension mubaax ah oo iska bannaan oo nabadgelyo xumada kaliya nabadgelyo xumada jirta kaligeed ayaa extension loo samaysan karaa yacni arrintaasi waa kow shaki bay keentay laba dowlad goboleedyadii oo maaragtay heshiis waa iska dhacay baydhabo uu ka dhacay laakiin weli way diidan yihiin in xerada la soo gashana waa la diidan yahay in lagala hadla arrintii oo qasab ah dowlad goboleed ayay doorashadu ka dhacaysaa haddaan lala heshiin ama aan lala meel dhigin runtii sida doorasho loo samayn karo ma cadda saddex gobolkan Banaadir xukuumadda hadda jirta adduunka waxay ugu necabta gobolka Banaadir dadkeedu matalaad ha helaan doorasho ha galaan si aan u ogaano dalkan doorasho inay ka dhacayso gobolka Banaadir oo gobolka kaliya oo dowladdu ay ka taliso hal lagu tijaabsho sanadkan ama sanadka soo socotaan aragnay in dalkan doorasho ka dhici kartee gobolkan Banaadir tijaab ahaan loo tijaabsho adduunka qofkii soo qaado maayarkii soo qaado waa la eriyaa waxaas shacabka hoteelada lagu kala eriyaa qodobka ku xiga waxay tahay villa Soomaaliya teamka jooga xisbi ma samaysan Soomaaliya waxa la leeyahay waxay u socdaan oo la taliyaashii madaxweynuhu inoo sheegayaan maanta dalkan doorasho qof iyo cod ka dhacaysa ila الآن xisbi ay ka tirsan yihiin iyo mid ay samaysteen male dalkana waxay leeyihiin doorasho qof iyo cod ah wada waxa ku xiga ninba waxa la yiri moogta raggii hubka haystay ayuu la taliyo u ahaa markaas ay maxaa kala talisaa hebel oo raggii waa weynaayo muqawirta wuxuu indhihiisa fiiriyaan meesha u socdaan la aada marka waxaan ka baqayaa la taliyaasheen halkaan fadhiya sharafta in indhaha ay raacraacaan oo aysan nooga warramay waxa dhabta ah dalka ka jira tan ku xigta waxay tahay u dambaysa amniga iyo al-shabaab odayaashii dhaqanka ergooyinkii waa la dhameeyay hal qof oo dhaqaaqi kara male qof cod u soo istaagi kara 2020 haddii xaaladan ay ku sii socoto oo sanduuq cod ku ridi kara Soomaaliya ninkii sheega waa iga aragsan yahay waa iga khibrad badan yahay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga hor akhriyay dastuurka qabyo qoraalka Soomaaliya kaasi oo ilaa iyo iminka dhameystirmi la waxaana wasiirka wasaaradda dastuurka uu sheegay halka ay marayso shaqada dastuurka Soomaaliya
ahamiyadda shirkani wuxuu ahaa waa shirkii saddexaad ee ay isugu imanayaan madaxweynaha iyo hay-adaha saddex geesoodka ee ka shaqeeya dib u eegista dastuurka. ahamiyadduna waxay ahayd in aanu mataqaanaa madaxweynahana ku wargelino howlihii socday ee geedi socodka dib u eegista dastuurku halka ay marayaan, isna uu talo iyo mataqaanaa halkaa ka bixiyo hogaamin arrintan iyo jihadii la qabsan lahaa. dabcan dib u eegista dastuurku waxay ka kooban tahay dhowr qodob. awalan qayb technical ah ama xag farsamo, qodobo la saxayo, wax lagu darayo, mataqaanaa la toosinayo, xag luqadeed, xag qoraal, xag sharciyadeed dastuurka mataqaanaa qabiyo qoraalkeenu hadda haysano ku meel gaarhka ah, iyo qodobo kale oo iyana u baahan wada xaajood siyaasadeed iyo in ay wax iska yiraahdaan hoggaanka kala duwan ee dalka ka jira. 2 saacadood iyo siyaad uu kula kani socday, madaxweynahana warbixin dhammaystiran oo kaamila baanu siinay, isna talooyin iyo tusmooyin aanu ku howlgalno ayuu nala wadaagay. wuxuu kaloo noo ballan qaaday inuu si joogto ah noola kulmi doono, noolana shaqayn doono si loo soo idleeyo dib u eegista dastuurka oo ah noqotay nooc min albarnaamij hadda muddo 20 sano dib u eegista kaliya ma hadda qoristiisii iyo charterada marka laga soo bilaabo 20 sano u dambeysay arrin socotay baa marka arrintaas si loo soo dhameeyo 2019 dhamaadkeeda. madaxweynuhu wuxuu noo muujiyay political commitment iyo in uu arrintaa hogaamin doono, run ahaantiina jaha wanaagsan ay ku socoto. carqabadaha jira, arrimaha jira iyo geedi socodkan iska wareysanay, kulamo dambe oo sano inaan isugu nimaadno isku afgaranay. marka hadda waxaa la oran karaa wuu dhow yahay dhamaystirkii dib u eegista dastuurku. qodobada wada xaajoodka siyaasadeed u baahanna waxaa lagala xaajoon doonaa daneeyayaasha kala duwan ee dalka ka jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha kale dawliga ee doorka ku leh. magaalada Kismaayo waxaa lagu soo waramayaa in ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka amar qaata Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland la dhigay garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Kismaayo. ciidamadan ayaa ka amar qaata Axmed Madoobe, cid kale oo warka yeelana ma jirto. waana ciidamo si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay in ay kontrolaan cidda ka baxaysa ama soo galaysa magaalada Kismaayo xilli halkaasi doorashooyin ay ku soo fooleeyeen. musharaxiin badan oo doonaya inay gaaraan magaalada Kismaayo ayaa baqdin ka muujinaya qaabka ay u tagayaan, iyadoo maamulka Jubbaland doorashadiisii ay iminka soo dhowdahay. waxaana arintani walaac ka muujinaya cid walba oo arrimaha Jubbaland daneynaysa ama doonaysay in halkaasi ay musharaxnimadeeda ku soo bandhigto oo ay xil ka qabato ama ay tartanto. magaalada Hargeysa tiro kamid ah saxafiyiinta ayaa xabsiga loo taxaabay. maamulkii TV-ga Ariel iyo waliba shaqaalo kala duwan oo ka shaqeynaya telefishinka ayaa xukuumadda Somaliland jeelka ay u taxawday. ururada saxafiyiinta ee ka jira Somaliland ayaa arintaas u cuntami weyday, waxayna cambaarayeen falkaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid xadgudub ah oo lagu cabrinayo gabi ahaanba saxaafadda Somaliland. horey ayaa xarumo kala duwan oo qaarkood ay kamid ahaayeen wargeysyo Somaliland albaabada isugu dhufatay, balse iminka waxaa soo baxaysa cabrintu in ay sii siyaadayso. way 2009 bishii 7 baynu marka dhameynay waxa la xiray in ka badan 15 wariye. waxa albaabada loo laabay Foreign newspaper-kii madaxa banaana oo ilaa iminka xiran. waxa kale oo yiraan runtii wiigan oo kaliyaata marka laga tagaba wiigan oo kaliyaata shalay toole 2 wariye ayaa lagu xiray CID-da oo markii dambe soo furdaaminay. waxa ka horeeyay isaguna maalin ama 2 cisho ka hor wariye Bakayle oo ilaa iminka CID-da war faahfaahsan aanay ka soo saarin xarigiisa. runtii markaad waxa soo dhan isku geyso waxa muuqanaysa in xorriyadda warbaahintu ay hoos u sii socoto haddii animka laga qabana runtii meel aanan anagu mahadinayn bay ku sii socotaa. wax laga qabtaan leenay mas'uuliyiinta dawladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo cid kasta oo shaqo ku laba runtii raga suxufiyiinta xidhan loo soo daayo xorriyadoodii allana la soo celiyaan leenay ay xabsiga dhigeen 4 wariye ee kala ah Badri Koosar Maxamuud, Cabdiraxmaan Fantastic, Caydaruus iyo sawirqaade Kamaal. 4 wariye oo ka howlgali jiray telefishinka la yiraahdo Ariel TV oo kamid ah warbaahinta Somaliland. run ahaantii haddii aanu nahay ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier waxa aanu aad u cambaareynaa oo aan aad uga soo horjeednaa falkaasi sharciga baalmarsan ee wariyaashaasi lagula kacay. runtii wariyaasha waanu ugu tagnay waanu la soo kulannay annaga oo kula kulannay saldhigga ee Koodbuur. waxaanay noo sheegeen inay gudanayeen waajibkoodii shaqo isla markaasina
warka ay soo duubeen ay dhinaciisa balanska ama loo yaqaano dheelitirka ay u socdeen sidii ay u heli lahaayeen waxaanu codsanaynaa in wariyaashaas si degdega xorriyaddooda loogu soo celiyo ka hadhi mayno waanu daba soconaynaa waananu isbarbar taagaynaa hal mid uun baanu xukuumadda iyo ciidanka isla waafaqi la'aanay ilaahay hadda war sharciga ha la ilaaliyo war sharcigu waa kay noo dhexeeya war waxaynu wax ku nahay waa sharciga war sharciga yaa la baalmalay asalaamu calaykum waraxmatullah markaa ciidamadii ammaanka soo xidhay in la xidhay kasokow ma xidhiir ma kala samaysan ciidamadii soo xidhay iyo sababta ilaa hadda u haystaan waxaanu isku day fara badan u samaynay inaanu taliyihii soo xidhay meesha la kulanno isla markaasina taliyahaasi uu yidhi arrinkaasi wuu iga sarreeya aniga taliyihii qaybta ayaanu la hadalnay taliyihii qaybtana waxa uu yidhi arrinkaasi wuu iga sarreeya waxa aanu aad isugu dayno oon isku taxalluujinay inaanu helo taliya cabdilaahi fadal iimaan waxaase nasiib darro ah cabdilaahi nagamuu qaban telefoonka guud ahaanna intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa wararka xogsoor media haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe oo gambaleelka riix si muuqaaladaynu kugu soo dhacaan mahadsanid